بسم الله الرحمن الرحيم تنواميد كميد حلقتين أنا كقال لنا رما فلسفة ما أنت نحن نقول دوبنا حلقات إنه كقال لنا فيلسوف كوينا بلاتو كاسيو هو فيلسوف كاسيو نولا مدك بدن أفر كون يلا بقول أصلا لما كون يفر بقول أصلا نضد كهرا نولا كاسي أو ها معلنكي أرسطو فيلسوف كي لورين جري أهانا عرضي سقراط فيلسوف كبلاتو أما أفلاطون وحوا كوان بحي فكرتيسي أيديولوجيكا أما مثاليكا أما يوتيوبيا لورين جري فيلسوف كاسي أو سو mid ka mid ah filosofiyadii ugu waaweynaa ee noolaaday waqtigaasi ahaana ninkii qoray waqtigaasi markii ugu horeysay qoray taariikhda falsafada waxaas kaloo ahaa ninkii aasaasay akaademiyadii ugu horeysay ee wax lagu barto kaasi oo ku aasaasay magaaladii Athena filosofka Aflaatoon kadib markii la dilay macalinkiisii Socrates in hore u soo aragnay waxa uu galay safar dheer oo uu ku soo maray meelo badan oo adduunka ah ase ahaatee meelihii ugu badnaa oo soo maray waxa ka mid ah Talyaaniga oo macalinkiisii Pythagoras uu ka soo bartay waxyaabo la xiriira riyaadiyadka ama xisaabta halka uu kadibna tagay Masar oo ka soo bartay cilmi falak waxa loo yaqaan ama cosmology cilmiga la xiriira samada xidigiska af Soomaaliga lagu yiraahdo kadib wuxuu ku soo noqday magaalada Athena halkaasi oo ka aasaasay akaademiyada kadibna waxa uu qoray waxyaabo badan oo falsafada la xiriira waxa uu qoray sheekooyin فلسفيينك أرميه وعن صناعة القراء وقت جاسي وحو قري وحياة الله يقنع محاورات أفلاطون قري هسه توح كلاو قري مجالدي فاضل كاهد أما مجالدي وناكسني وحوي به مجالده وناكسن أفلاطون ودوني وحيد مجاله أي حكمان فلسفيا oo ay ka yihiin iyagu siyaasiyiin ama ay ka yihiin dadka xukunka gacanta ku haya hase ahaatee magaaladiisaasi waxa kale oo ka mamnuucay magaaladiisa gabayahanada ama ragga gabayaaga ah taasoo uu kaga mamnuucay inay hayaan in ay dadka mashaacirtooda ama dareenkooda kor u kiciyaan hase ahaatee aanay wax kale oo badan ku kordhinaynin xaqiiqada ka jirta magaalada wanaagsan waxa uu doortay Aflaatoon oo uga dhigay inay u noqdaan dadka u shaqeynaya magaalada wanaagsan wuxuu yiri waa in laga qaado caruurta dadku dhaleen dadka oo dhan iyadoo la kala saaraynin muddo hore iyagoo yar kadibna ilaa intii 20 jir gaadhayaan lagu tababaro quwad loo sameeyay awood si ay u noqdaan kuwo jirkoodu iska xamili kara xanuunada kadibna lagu kala saaro imtixaan caqliya oo la eego kaliyaaqaadkiisa caqliga ama u diyaar yahay caqligiisu ugu wanaagsan yahay oo u noqdo mid ku sii socda in uu gaadho heerarka sare kadibna saas ugu sii waday kuwa u yeelanaya xukunka xaq inay xukumaan ay noqonayaan kuwa falsafada ee ka tanaasulay inay guursadaan ee ka tanaasulay inay xoolo gooniye yeeshaan waayo waxyaabaha soo dhimo waxyaabaha mashquulinaya qofka wax kale oo filosofka Aflaatoon iyo qofka magaaladiisaasi faadilka uu sameeyay dadka adoomada iyo dadka beerwalayaashii waa inay u shaqeeyaan dadka fakaraya fikirkaasi waan diidi karnaa waayo hase ahaatee casrigiisii wuxuu ahaa fikir munaasiba ama jiray oo way jirtay adoonsigu waxay iska ahayd shay caadi ah mana ahayn shay waqtigaasi la diidana si qarniyo badan oo ka dambeeyay oo adoonsigu ahaa shay caadi ah oo aan la diidin hase ahaatee waxa kale oo aaminsan waxa la yiraahdo ama in dadka wanaagsani ay dadku ay sida u kala awood badan yihiin يعني qofkii quwadiisa jismiga ay awood badan tahay ama xoog badan tahay inuu guursado qof quwadda jismigiisa xoog badan tahay si ay u dhalaan ilmo xoog badan si kadibna ay u soo saaraan mujtamac wada xoog badan oo nadiif ah fikradaasi iyaduna waa fikrad waqtigiisii uu horeysay oo waqti hore ahayd uu soo bandhigay waayo waqtiyo dambe oo naasiyiintii waqtiyada dambe ayaa xoog loo soo bandhigay xoogna loo dabaqay laakiin waqtigiisii ma ahayn fikrada dabaqo laakiin dadyo ka dambeeyay ayaa xoog u dabaqay Aflaatoon waxyaabaha ka faa'iidi karna oo ugu muhiimsan waxa kamid ahaa jacaylkiisii uu u qabay waxyaabaha loo yaqaan muusiga ama waxyaabaha loo yaqaan Ethiopia ama fikradiisu waxay ku salaysan tahay in shayga jooga iminka xaqiiqada oo arkayna uu leeyahay shay ka wanaagsan oo jooga meel ka sareysa yaani iminka jacaylka adduunka ku arkaysa waa jacayl naaqisa laakiin jacaylkaas oo dhameystirani wuxuu joogaa meel kale oo loo yaqaan musil ala ama meel sare سأوجد أفلاطون فكرتي ساسيو آمنة وحو آمنة قف كستابة إنه جعلاده قف
wuxuu ku macnay jacaylka inay cijaab tahay inaad shay ku cajabiyo dabadeedna aad jeclaato qofkaasi shay kugu cajabiyo laakiin shaygaasi ma aha shay jismaaniya waa shay ruuxiya yani waa shay sida qof baad ku aragtay geesinimo cadaalad raxmad ixtiraam quwad honori waxyaabo badan oo nadiifa oo fiican oo qurxinaya qofkaasi caqli wanaagsan ayaad ku aragtay waxaad jeclaanaysaa arrimahaasi si aad uga hesho adiguna arrimahaasi waa arrimo adiga kaa dhiman oo geesinimo marka adiga kaa dhimantay aad u geesi ahaan wanaad guursato ama waa inaad jeclaato dad geesiyaala ood u tagto si aad uga soo faa'iido geesinimada ma aha inaad u guursato ama aad u noolaato noloshan hoose Aflatoon wuxuu leeyahay fikrad loo yaqaano godkii Aflatoon ama kahfigii Aflatoon kahfigaasi ama godkaasi wuxuu ku sawiray ama wuxuu inoogu soo bandhigay sheeko uu inoogu matalayo sida ay xaqiiqadu u adag tahay filosoofkuna uu in badan u daba socdo xaqiiqada fikradaas waxa weeye inay dad kooxi ku dhaceen god lagu xiray dabeedna godkii ay ku tarmeen oo isku dhadhaleen godkaasi oo madow weligoodna may arag wax ka baxsan nolosha godka madow kadib waxay ka arkaan meel yar oo daaqada oo mugdiya ay ka arkaan humaag xayawaanada iyo dadka dibadda maraya maskaxdooda waxa ku jirta inay humaagaas yahay wax jira hase ahaatee ma garanayaan nooc allaaliyo nooc uu eegay iyo wuxuu yahay toona mid maalmaha kamid midkood ayaa ka baxsanaya godkii yaraa ka baxaya kadib markuu iska furo xarkii ku xidhnaa iyo qaydadkii ee aabayaashii ku xidheen si aan uga bixin godkan kadib markuu godka ka baxo wuxuu la kulmayaa cadceed nolol iftiin waxyaabo kale oo aanu arkin dad xayawaan waxa ku dhacaysa sadma ama uu yaabaya kadib uu ku soo noqonayaa kooxdiisii kama rumaysanayaan waana beeninayaan taasi ayaa ku dhacda qof kasta oo arka wax ka duwan ama ka baxsan mujtamaciisa waana sidoo cabirayo filosoofku uu arkayo shay wax ka baxsan mujtamaciisa ama nabiyaashu ay arkaan diin ilaahay ku soo dejiyo diin ka duwan waxay dadkii ay la noolaan aaminsanayeen kadibna ay dadkii u qaataan inay ku hadlayaan wax khuraafaada ama wax turaahada oo ka duwan si ay kolba maalin u soo rumeeyaan sababkeed maanta Aflatoon waxyaabaha ugu badan ka faa'iideysan karnaa waxa weeyaan inaad ku noolaato xikmadda aad jeclaato oo sideedana u jeclaato inaad ku noolaato caalam mithaaliya inkastoo fikradiisa uu macallin ardaygiisa Aristo uu ka furfuri doono wax badan oo inoo soo bandhigi doono sida ay u muhiimsan tahay in caqliga aynu wax kasta ku eegno oo caqliga wax ka sareeya aanu jirin iyo waaqica aynu ku noolahay oo shayga kaliya ee xaqiiqada aynu ognahay uu yahay waaqica hase ahaatee filosof Plato ama Aflatoon waxa uu ku leeyahay shay waaqicahi waxa uu leeyahay shay kale oo shay kasto waaqiciya waxa jira shay ka sareeya oo aad tahay in aad gaadho waayo maanta jacaylka adduunka raxmadda adduunka akhlaaqda adduunka dhammaantood waxa jira akhlaaq raxmad wanaag ka sareeya oo aynan gaari karin saasuu soo bandhigay fikradiisa in magaalo wanaagsan laakiin magaaladiisa wanaagsan aan la gaari karin magaalo wanaagsan oo falsafada xukunto magaalo wanaagsan oo shaqeysa fikradiisa fikrad wuxuu leeyahay iyaduna kale oo la new demonia ama fulfillment yani waxa weeyaan in bilaadanku gaaro kamaal magaaladiisa wuxuu doonayay noqoto magaalo sacaadada iyo fulfillmentiga iyo kamaalka bilaadanimada ku nool magaalo aad iyo aad u haysata buildings ama asaasiyaad u haysata asaasiyaadkaasi oo ku dhisan in dadka fakaraya ay u shaqeeyaan dadka kale dabeedna dadka inoo fakaraya ay inoo soo saaraan fakar fiican kuwa kalena ay inoo soo saaraan malbasiima kalimaad waxaynu yaqaano daruuriyaadka nolosha adoomada iyo beeralayasha iyo dadkaas oo dhan ciidankuna inuu ilaaliyo nabadda dabeedna ay inoo soo saaraan dadka fakarayana inaynu meel gooniyo u samayno dabadeedna aynu iyagana eegno imka waxa naas oo kale waxay sameeyaan inay ka khafiifiyaan dadka iyada u shaqeeya ee u fakara ee designska sameeya inay ka khafiifiyaan dhibaat nolosha dibadda ay kala kulmayaan يعني نولش جوريجا نولش اللايد إنه وريري اللايد كجوريجا وحيابات صورن إنه كخفيفيان سأوقف فكري كران مسكحة ضردن واختيار ضردن سأوجد أي ناس وسمي سي برنامجيو أي كساعدي سو إنه واختيار صورن دميان ما أنت واحد كفايدنا فيلسوف أفلاطون يقومهم سني التاريخ ذي فكرته سيء أرمي صورن كفايدنا حويان وجسنا ماذا أولها إنه توسعته حقيقة فيلسوف
marnaba waxaanu aaminin in la gaadhay xaqiiqadii dhabta ahayd ee uu lahaa shay kastaaba saa awgeed waxa uu doonayay inuu mar kasta sii gaadho xaqiiqada sii wado oo uu gaadho halka u dambaysa saasaanu u yidhi ma jirto meel aan ku dhammaanaynaa ilaa iyo masalka inaga sarreeya saa awgeed maalmaha dambe waxaan eegi doonaa Aristo oo isaguna ahaa filasuuf weyn oo ardaygiisina ahaa waxyaabo badan falsafadiisa ka bedelay taariikhdana dhameeyay wax kale eegi doonaa filsafiyada islaamka ibn rushd iyo Farabi oo halkan nafteeda xalaqadan Farabi uu ku leeyahay ra'yi oo kaga hadlaya cilmiga ijtimaaca iyo sida loo kala qaybinayo bulshada tabaqada sare tabaqada hoose tabaqada dhexe iyo ibn khaldun iyo qaybintii uu isaguna qaybiyay bulshada halqadeena dambe insha Allah waxa soo dhan ku kulmi doona thank you